warbixinta kale ee barnaamijka xogta maanta aan ku soo qaadan doonana heerkee gaarsiisan yahay aqoontaada luuqadaada hooyo waa luuqada af Soomaaliga si kale hadii aan kugu dhigo aqoon durugsan ma u leedahay tirsiga maalmaha adigoo isticmaalaya luuqada af Soomaaliga khadray alaaba dadku waxay sheegaan markay rabaan maalmaha inay iskugu yeeraan sabti axad isniin talaado arbaco khamiis iyo jimco laakiin dhamaantood waxay leedahay inaysan kelmadahaas ahayn kelmado Soomaaliya haddaba waa tan warbixin macluumaad iyo sidoo kale duruusba kugu filan oo aanu idinka diyaarinay tirsiga maalmaha iyo Soomaaliga waxa uu uga dhigan yahay waxa inoo soo koobaya Maxamed Kaabe inta badan dhalinyarta Soomaaliyeed aqoon durugsan uma laha waxa loogu yeero maalmaha toddobaadka sida sabti axad isniin oo aysan badankood u ogsoonayn inay tahay luuqada qalaad sida Carabi waxa jirta waqtiyada ama muddooyinka soo laabta wax loogu yeero luuqad walba sida bilaha isbuucyada iyo sanadlaha ama qarniyaal iyo wixii la mid ah balse waxa ay soo gudbin doonaa muuqaalkan oo aan kaga geeyan doono isla markaana ku bari doono waxa loogu yeero maalmaha afka Soomaaliga hagaag halkani waa SBS TV waxa idin soo gudbin doonaa maqaal uu kaga gooyooday qoraada ayar Hanad Saciid Maxamed maalmaha toddobaadka ee isbuuca loo yaqaan waxa lagu dhawaaqo ama loogu yeero af Soomaaliga saxda ah markaan ka soo tagno sabti axad iyo sidii aan hore u naqaanay oo ah luuqada qalaad maxaa af Soomaali lagu yiraahdaa maalmaha toddobaadka ogtahay akhristow ayaamaha toddobada ah mid walba iskeed bay magac loo unkamiyo gaar aan ugu astaynay dhabtii ummadaha dunidan ku dhaqan mid waliba waxay maalmaha toddobaadka ugu suntan yihiin magacyo gaar ah idil dalalka ku hadla afka Ingiriiska oo Ingiriisku hormuud u yahay waxay maalin walba oo kamid ah toddobada maalmood ku laqeeyeen magacyada meerayaasha qoraxda sanabyada iyo wixii la mid ah tusaale Saturday waa Satane sidoo kale Sunday waa the sun halka Monday oo isniin ay ka tahay the moon haddaba Soomaalidu waxba kagama duwana ummadahan aan kor ku soo carabaabnay maalmaha iyo bilahaba waxay u lahaan jireen walina u leeyihiin magacyo gaar ah oo mid walbana ay xigmadi ku mariiman tahay inkastoo magacyadaasi qaarkood ay sii wisleeyihiin maanta waxaan idin soo bandhigaynaa magacyada Soomaaliga ee loo yaqaan maalmaha toddobaadka aniga oo meelaha qaarkoodna doodeeda cuskinaya tix iyo tiraab faneed horeyn uluf waa sabtiye waa tan la yiraahdo ulufkeedii la raray iyo agagas cirfiid isma seegana marka xigta ama astub waa axade waa tan la yiraahdo indha adka ma astub u dhashay saddex alwan ama isniin waa tii khaliifadii sareeda ilaaf ay ku madaxday alwaanay udgoonow nabigii ayaantu dhashay ambiyo ibliiskii la ilmeeyay baroorta afar tarako waa talaado tarako dadkii hore waxay u ahayd maalin balo waa tii ninkii geela u heesay u lahaa dartub qaal iyo maalin taraka ah nin ku soo tubay kuma turin oo tooyay kuma laha shan warki ama arbaco Soomaalida hore maalinta warkida waxay u ahayd maalin abshir ah waxayna ku ducaysan jireen waaqow ama allow warkii iyo wadkeenuba kulmi lix takaar waa khamiis Soomaalidu hore takaartu waxay u ahayd maalin ciyaar iyo farxadeedba barbaarkii rabay inuu ciyaarta ooga waatu lahaa hobay caawateediyo hobay waa takaare hobay wiilal tiirshiyo hobay meeya timo dheer hobay tii ka xoogiyo hobay jaantu tiicday hobay mataababka go'an toddoba tumbud ama waa jimce maalinta tumbud waxay u ahayd maalin go'aanka iyo gudoonka arrimaha culus la rido waxa idin codeeyay anigoo Maxamed Kaabe aad buu mahadsan yahay oo inoo soo koobayay warbixin la xiriirta barashada luuqada Soomaaliga gaar ahaan maalmaha inta ama waxyaabaha magaca Soomaaliyeed loogu yeero